Assalaamu calaykum kusoo dhawaada casharada taxanaha online-ka anaga barata waxaan ku dhex jirnaa beginner level of English ku jirnaa lesson 3 waxaan qaadanaynaa numberska 1 ilaa 100 aan barnaynaa learning objective by the end of this chapter the student will be able to dhamaadka chapterka ardayga wuxuu awoodi doonaa counting from 1 to 100 in English wuxuu tiri doonaa marka 1 ilaa 100 in English ku tiri doonaa read wuxuu akhri doonaa write wuxuu qori doonaa numbers correctly nambarada si correct u qori doonaa ask and answer questions about age su'aalo dadka wuxuu weydiin doonaa age-ka phone number prices and quantity da'da telephone numberka qiimaha iyo wax la xisaabin karo use numbers in everyday conversations maalin walba wuxuu isticmaali doonaa numberska wuxuu isticmaali doonaa recognize ordinary number first, second, 20, 10 waxaas nambarada ordinary loo yaqaan oo bari doonaa marka intaas ardayga aa ku bari doonaa marka waxaan ka bilaabeynaa number 1 ama numbers 1 ilaa 20 waa tirinaynaa kan number ahaan loo qoraa kan waa ahaan si loogu dhawaaqayo hadda kan number ahaanta waa fahmi kartaa af Soomaali waa ahaantaana ku dhawaaqaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 saasaa ugu dhawaaqaya mid kastaba ku celi muuqaalka bawas dhaho ku soo cesho marka 10 ilaa 20 see ugu dhawaaqay hadda nambarada af Soomaaliha ku fahmi kartaa laakiin kan wordskaana akhrinayna 20 30 40 50 60 70 80 90 100 waa fahantay marka adina bawas dhahe muuqaal maadaama oo aad daawanaysid saad ugu celisid insha Allah marka waa kana numbers 1 21 ilaa 99 aa fiirinayna yani markii hadda waxaan tiriyay iyagoo 0 raacsan yani 20 30 iyagoo 0 raacsan markii number la raacsiinayna see naqanaya form numbers by combining the tens and ones yani tomanli waxaa lagu dari doonaa halle singularka hadda kan oo kale 21 25 32 44 57 63 76 88 99 saasaa loogu dhawaaqa marka number isle iyo number islahayn waayo marka ruleka fiiri 10 plus 1 waxaa loo yaqaanaa example 20 oo ahay plus 1 lagu daray 20 oo ahay 1 lagu daray 21 oo naqanaa 30 oo ahay 5 lagu daray 35 oo naqanaa 60 oo ahay 8 lagu daray 68 oo naqanaa 90 oo ahay 4 lagu daray 94 oo naqanaa qaabkaasaa ugu dhawaaqaya asking about numbers marka question how old are you imse sana jirtaa I am 20 years old waxaan jiraa 20 sano what is your phone number numberkaaga waa maxay my phone number is numberkii waa 612 345 678 numberkii kaas waay laakiin numberka ani malihi waa number oo ashway iska qora waay marka how many students are there imis arday ayaa galaaska fadhiisa ama halkan joogta waxaa joogta 35 students 35 arday joogta what number is this numberka waa maxay it is 48 waa 48 how much is it waa imisa alaabtan agadoos it costs $15 wuxuu joogaa $15 oo joogaa marka waa fahmi kartaa saasa ku wadeena talking about age examples how old are you imisa sana jirtaa I am 18 years old 18 sana jiraa how old is she imisa sana jirtaa iyada she is 25 years old 25 jir waay how old is he imisa jir waa asiga he is 40 years old waa 40 sano jiraa habkaasa ku wade telephone numbers marka read numbers one digit at a time example nambarada waa kuwaana marka 07 23
45 67 87 89 waa kuwaana marka 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 another example oo kale 1 2 3 4 5 6 aan qornay 1 2 3 4 5 6 asana qaabkaas u wadee marka qaabkaas numericalkaas qaabkaas loo sameynaa number walbaba waa dhahaan qaabkaas ugu dhawaaqay marka priceska kale markii qiimaha la sheegayo example the book is $10 book waa $10 the pen is $2 book waa $2 the bag cost is $25 boorsadu waxay joogtaa 25 the notebook cost is $8 notebook wuxuu joogaa $8 the dictionary cost is $30 dictionary wuxuu joogaa $30 joogaa marka hadba waxaan xisaabiye qiimaha baraska oo joogo counting marka objectives pictureskan waxaa ku aragta inta waxa u sheegay sentence ahaan inta maxaa yaala hadda 1 apple hal tufaaxa yaalo 2 apples laba tufaaxa yaalo 3 books saddex buuga yaalo 4 pencils afar pencil yaalo 5 students shan arday aa joogta oo jeeda shan sawir kaaga muuqdo examples kadaan fiirin I have 3 books waxaa haysaa saddex book there are 10 chairs waxaa yaala halkan 10 kursi we have 20 students waxaa haysanaa 20 arday waxaa haysanaa 20 arday marka waa kana numberka wareena numberada ordinal numbers kan fiirinayna number 1 ilaa iyo number 20 first second 30 40 50 60 70 80 90 10 11 12 13 14 50 70 60 70 80 90 20 saasaa u aqrinaya marka waxaa ku qatimay t marka example today is the first day maanta waa maalinka ugu horeeyay day 1 ma dhegeysid first day aa leedahay my birthday is the 12th waa 12 of May she finished in the third place iyadoo waxay ku dhamaysay kaalinta saddexaad waad dareemi kartaa ma hadda qaabka u sheegay marka dee oo aan boobsiinayo joojiso kusoo cesho muuqaal waa waxaad daawanayso conversation marka practice dialogue 1 how many books do you have imise book adi haysataa I have 5 books shan buu haystaa dialogue 2 how old are you imise sana jirtaa I am 21 years old 21 sana jiraa what is your phone number numberkaaga maxaa waaye my phone number is 613 555 656 numberkii waa intaas haddii waa faantamo dialogue class activity work with the partner la shaqeey ask and answer how old are you qof weyd guri kula joogo how many brothers do you have imise walaal haysataa adaad ku weydiinaya fiirsanaya muuqaalka how many sisters do you have imise walaal gabdho ku dhasheen what is your favorite number numberkay jeceshahay what is your phone number numberkaaga telefoonka sheeg use a sample number if preferred to keep your preferred haddaad u baahan tahay marka numberkaaga oo telefoonka kale inaad si preferred u sheegtid qof public ha ku sheegin haddii kale dee laga ogaado lagu dhibi karaa fill in the blank marka meelahan soo socda buux use the correct number numberka saxa dooro number 1 kana doorane inta waxaa lagu qore number 2 inta hal 15 30 iyo 47 100 ayaa oo ku aqrina 1 15 30 47 100 ayaa adiga laga rabaa inaad buuxisid marka isku day jawaabtan fura marka adiga waxaa laga rabaa inaad jawaab taqaan waa kuwana maxaa yaalo 1 waa dhahaan oo qore 15 waa dhahaan oo qore 30 waa dhahaan oo qore 47 waa dhahaan oo qore 100 waa dhahaan oo qore meesha ku buuxine xisaab waxa u qore
qoral ingiriis ahaan oo qore marka match the numbers isku aadi marka nambarada 50 20 80 inta waxaa yaal 20 50 80 isku aadi marka adaa la rabaa inaad isku aadisid 50 wuxuu meeshuu ku aadaya isku aadi marka isku day anaad jawaabo kuu fura adina aan isku aadisaa rajeynaa 50 wuxuu ku aadaa b uu ku aadaa 20 muxuu ku aadaa a uu ku aadaa 80 wuxuu ku aadaa c uu ku aadaa waa kaa ujeedaa waa ar jawaabaha ad laakiin bawas ku qabso jawaabaha saad u arkin inta write the numbers in word write these numbers in English 21 24 39 56 71 98 English ahaan u qor qoraal qor word qor adaa laga rabaa inaad qorto marka aan kuu fura jawaabaha aad isku day waa kana 24 39 56 71 98 intaas jawaabaha marka aad isku day insha Allah listening practice hadda dhegeyso marka aan sheego ku celina dhegeyso 12 28 45 67 91 bawas ku qabso kusoo cesho marka dhawaaqa kusoo celi homework marka su'aalaha isku soo day write numbers 1 to 100 in words waxaa usoo qortaa marka qoraal ahaan usoo qor memorize waxaa xifdisaa spelling 1 to 20 then 10 is xifdi 20 30 40 50 60 70 90 100 intaas soo xifdi write 10 numbers in words qor example san oo kale 17 29 45 63 88 number ahaan waxaa usoo qortaa word ahaan usoo qor numberskaas ask 3 friends their age and write complete sentence saaxiibada saddex qof guri kulda ama walaalaha da'day jiraan weedi af ingiriis ahaan u qor marka homework waay groupna u sadir insha Allah vocabulary key vocabulary marka word number maxaa loo isticmaalaa sample waa used for counting wax la xisaabinaya waay count maxaa loo isticmaalaa the number the same numbers in order nambarada la tirinaya waay age maxaa loo isticmaalaa how old someone is da'du qof jira waay price the cost of the something waay qiimo oo waxa joogo phone number a number used to contact someone waay number qof lagala xiriirayo quantity the amount of the number of something waay wax tiro oo any tiro waay 10 years 100 kan waxaa loo yaqaanaa the number 100 yani tiro oo waxaa loo yaqaanaa 100 oo number waa first waxaa loo yaqaanaa number 1 in orderly number 2 second number 2 loo yaqaanaa third waxaa loo yaqaanaa number 3 marka waxaa rajeynaya inaa fahanteen oo nambarada aad soo diri doonteen jabtarka marka summarizkiisa in this chapter ardayga wuxuu bartay counting from 1 to 100 si loo xisaabiyo read and write numbers correctly numberka si u sheegi karaa ask and answer questions about age price phone number and quantity waxaasoo dhan waa xisaabi kartaa use ordinary number nambarada first second to third uu dhihi karaa ardayga practice numbers marka through conversation activity exercise uu samey karaa marka aad isku day practice samee next chapterka aan qaadan doono maxaa waaye days month and time kuwaasaa baro doona xoog saari doonaa marka chapterkeena intaas kusoo gabagabaynaynaa haddii aad tahay arday ku cusub halkaad ka daawanaysid koorsooyinkan kala bixinaa oo iskuulka laga hela online ahaan waa soo dalba kartaa waana mahadsantihiin nambaradan labada nambar whatsapp nagala soo xiriir insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.